والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحب الوان اسلامي كسو دhowaada cashar xiiso badan kaasoo qaabka loo isticmaalo HTML CSS JavaScript. saaxiibayaal website kan waxa uu ka caawin doonaa qaabkaad u bar lahayd HTML CSS iyo JavaScript adigoo ku taskaraynaya website kan aad uga helay waa jsfeed.net balada waa website ka ku taskarayo HTML iyo JavaScript iyo CSS waana website ka ku bartay saaxiibayaal marka roadmap fiican ayaa wadi noqonaya hadii aad isticmaalaysaan ama aad website kan barata qaabka loo isticmaalayo. Very simple saaxiibayaal, HTML ka waa kan code-ka xaqan aad ku soo diyaarinaysaa code-kaaga HTML ka xaqan aad ku qoranaysaa. saaxiibayaal very simple CSS ka xaqan aad ku qoranaysaa oo adagan oo qaabkood ku qorxayso qolfof baad qorxinaysaa. Okay saaxiibayaal, JavaScript waa bot kan oo soo wada arkay isagana saaxiibayaal marka very simple HTML iyo CSS iyo JavaScript deetana halkan waxa kaaga soo baxay resultigi. marka saaxiibayaal waxa isku dayay tool Soomaalidu isticmaashaan isku dayana sameeyo toolkaas oo ka kooban wax badan insha Allah waa soo wada doonaa mid aad waxa insha Allah waa soo wada doonaa mid word control soo wada wax walba insha Allah waan idin sameyn doonaa. insha Allah waxa noqon doonaa Soomaaliga ugu horeeyay ee sameeya forum tools. marka saaxiibayaal kani waxa weeyaan grammar dhamaantoodna waxaan isticmaali doonaa HTML CSS iyo JavaScript. website-ka waana idin soo bandhigi doonaa insha Allah. kani waxa weeyaan qayb kamid ah ee forum ka isticmaalaya qayb kamid ah. marka bal saaxiibayaal waxa isku dayi doonaa inaan halkan tagno. marka saaxiibayaal tusaale ahaan waxaan soo qaadan doonaa inta saaxiibayaal soo qaadan doonaa this blog post intaan soo qaadan doonaa copy baan leenay. marka saaxiibayaal anigu waxaan dhisay forum tool kaasoo ah grammar checker. waxa uu ka sixi doonaa erayada Ingiriisida ee khaldan ee blog postigaaga soo gelinayso ama si kala aad u isticmaalayso adiga ay ku taalaysay isticmaalayso. marka saaxiibayaal kani waxa uu ka caawinayaa erayada ka khaldan inuu ku sheego lambaradooda isla markaana dash line oo halka hoose uu kaga raaciyo eray kasta oo khaldan. marka saaxiibayaal halkan ayaan ku soo diyaariyay HTML ka halkan aan ku dhisay CSS ka halkan aan ku taskiray JavaScript ka halkan aan ku qoray. marka ba saaxiibayaal inta text yar halkan weeyaa saaxiibayaal control base baan wada doonaa halkan aan ku bastaran doonaa. marka ba saaxiibayaal intaan screen tusaalahan imaka wada arkaysaa waa dhamaantood waa sax. marka ba saaxiibayaal waxaan isku dayi doonaa inaan ka khaladno lambaro. tusaalahan waa 1 2 3 4 5. tusaalahan waxaan khaladnay saaxiibayaal 5 kelmadood ayaan khaladnay saaxiibayaal waa ka dash link saaray dhamaantood kelmad kasto khaldan waxa uu ku saari doonaa lead ka yaraca hoose. waa sida u sameeysan yihiin saaxiibayaal waa ka explorers transporter independentiga iyo implementation ki understanding. marka saaxiibayaal waa 1 2 3 4 5 waa qasab. marka waa inaan button ka saaxiib check grammar baleenay waxay rabad sugisaal barqsiya way toolka wuxuu soo saar doonaa inta mid khaldan. marka saaxiibayaal waa ka possible statement phone waa ka saaxiibayaal errors phone. marka saaxiibayaal waa 5 mid aan khaladnay ayaa xaqay nooga soo bixi doona. marka saaxiibayaal adeedoon inaad iska masaxnay erase text oo ka siisi ku noqday. marka wax kale ugu madanlii hadii aad doonayso inaad barato HTML CSS iyo JavaScript website-kan waa website-ka ugu fiican aad ku taskarayn doonto wax walaal dhisaba. insha Allah saaxiibayaal waxa idin soo wada forum tool kaasoo ah article writer waan ugu talagalay dhalinyarada website-yada leh. website blog post waa soo aragtay website blog post waa soo qaadaysaa halkan aad ku copy garaynaysaa ka bacdi article writer badonaysaa wax yar 10 second ilaa 15 second bad sugaysaa uu ku bedelay gebigiisiba waxaanu kugu bedelayaa islail barqsiyo gudaha kuwaasoo ah article-kaas macnuhu ku saabsanaa macna la mid ah insha Allah. kaasna tool kan oo soo wada tools badan oo kala soo wada insha Allah kaasoo soo bandhigin doono insha Allah marka website-ka dhameystiro forum toolska. marka saaxiibayaal halka ayaan ku joojin doonaa website-kana linkigiisa description-ka ayaan dhigi doonaa waana soo diskara doontaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.